بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال waxaan leenahay jimcaana sanaad ku soo dhawaataan taariikhda ciyaaryahanka Nicolas Pepe oo aan soo gudbin doono maanta. waxaana barnaamijka soo jeedin doona anigoo ah Nuur Aadan Shaga. markaan saaxiib yaal barnaamijka ayaan guud gali doonaa. xaleeyahay Nicolas Pepe waxa uu dhashay maalintii markii ay 29 May 1995 aabihiisa waxa lagu magacaabi jiray Papa Celestin Mantis la Jolie Coman oo ku taala waqooyiga dhexe Faransiiska ayuu ku dhashay. Nicolas Pepe waxay ka timaadaa bilaawashada mugdiga ee asalka saboolka ee ah qoyska, inkastoo uu ku dhashay Faransiiska laakiin waalidiintiisa ayaa dadka soo galootiga ee ka yimid Ivory Coast, kaas oo ay bartamihii 1990kii ay soo galeen si u raadsadaan nolol wanaagsan. markii la diyay Paris waalidiinta Nicolas Pepe waa inay raadsadaan shaqooyin la heli karo. aabihiisa Celestin wuxuu qabtay shaqada ilaaliyaha xabsiga halka hooyadiisa ay sii ahaanaysay ilaaliyo guri. waxayna dhaleen wiilkooda Nico waxay ku barbaareen magaalada Mantis la Jolie. markii dambe noloshiisii hore waalidiinta Nicolas Pepe waxay go'aansadeen in ay u haajiraan Beatrice ee galbeedka Faransiiska kadib markii aabihiisa shaqo laga siiyay aagaasi. muhiimada ugu weyn ee waxbarashadiisu waxay timid markii uu jiray 6 sano jir. tani waxay ahayd xilligii uu la kulmay macalinkiisa dugsiga oo weydiiyay Nicolas, waxaad doonaysaa inaad samayso noloshaada? Nicolas Pepe oo ku jawaabay, waxaan rabaa inaan noqdo ciyaaryahan xirfad leh oo markaan weynaado, ayuu yiri Nicolas Pepe. go'aankan ayaa la yaabay macalinkiisa oo aan weligiis garanaynin Nico oo waa mid xoog leh oo go'aansaday inuu gaaro himiladiisa. sidaas ayuu go'aansaday inuu ku caawiyo wiilkan yari. kadib guushii Faransiiska ee dunida 1998 waxay aragtay tiro badan oo muhaajiriin Afrikaan ah oo ka qayb galaya kubadda cagta. Nicolas ma ahayn mid ka reeban, inkastoo uu sii watay waxbarashadiisa oo ku dhex daray kubadda cagta ilaa yaraantiisa. da'da Nico weligiis ma ahayn wax soo saare akadeemiyadeed oo lagu talagalay bilowga da'doodu tahay 10 sano ilaa 9 sano. Nicolas Pepe wuxuu sii waday hamigiisa kubadda cagta. wuxuu arkay isagoo maraya tijaabooyin isla markaana iska diiwaan gelinaya naadiga maxalliga ah ee Faransiiska Beatrice FC oo hadda loo yaqaan Stade Beatrice. kooxda weyn ee kooxda waqtigaasi waxay ka ciyaareen horyaalka heerka shanaad ee Faransiiska. maxaad ka taqaanaa waxyaabaha uu jecel yahay Nicolas Pepe? noloshiisa jacaylka waa mid gaar ah oo laga yaabo inuu yahay riwaayad la'aan. waqtiga qorista Nicolas Pepe ayaa doorbiday inuu diiradda saaro xirfadiisa, waxaana uu doonayay inuu ka fogaado wax kasta ku saabsan xiriirka gaarka ah. inaad ogaatid xaqiiqda nolosha shakhsiyadeed ee Nicolas Pepe waxay kaa caawin doontaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. ugu dambeyntii, noloshiisa gaarka ah Pepe waa qof leh dareen joogto ah oo aan jirin waqti ku filan wax walba ah. miyaad ogeyd Nicolas Pepe aabihiisa Celestin Papa wuxuu mar ahaa ciyaaryahan kubadda cagta oo aan ku guuleysan in uu noqdo xirfadle? Papa Celestin wuxuu go'aansaday inuu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta wakiilka ah wiilkiisa Nicolas. tani waxay ahayd xilligii uu go'aansaday inuu kormeero xabsigii oo xabsi ka dhigo dhinac wiilkiisa yar si uu xirfad u yeesho. Celestin wuxuu shaqeeyay oo wuxuu qaatay waqti uu wiilkiisa u raaco tababarka. wuxuu aaday ilaa iyo inta uu ka helayo shakhsi aqoonyahan kubadda cagta ah si uu ugu dhawaado wakiilkiisa. maanta waalidiinta Nicolas Pepe waxay joogitaankooda iyagoo quranaya faa'iidooyinkii ku yeeshay qoyskiisa. sida laga soo xigtay akoonkiisa warbaahinta bulshada, wuxuu u muuqdaa inuu xiriir wanaagsan la leeyahay hooyadiisa. waa maxay diinta uu haysto Nicolas Pepe? Nicolas waa ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara, waana ciyaaryahan muslim ah oo jecel diintiisa inuu ku muujiyo qaab ciyaareedkiisa. wuxuu jecel yahay booqashada Dubai ee ku yaala Imaaraadka Carabta. xiriirka garoonka dhexdiisa, Pepe waa mid aad u wanaagsan inuu u falgalo ciyaartooyda tiimkiisa kasoo horjeeda iyo kuwa tiimka kala tirsanba.
واحد بيقول ساسن تاريخ نيكولاس بيبي هكذا سوق كويتونا صاحب يا ولا برنامج soo jeedinahay intuu wada ku jiraan waa nuurana shaka waxaan ka codsanayna inaad muuqaalka like saarto share dhahdo si uu muuqaalku gaaro asxaab badan nabadgelyo saaxiibayaal